الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمان أصحابتا ملك استوى جوكتان إلهي سبحانه وتعالى وحن كبر إياه إنه يدنكو أمان سدوه يدنكو عافيه سيدي عن سوء إعلاني أو سوء شيغي وحن ربي كلمات كوبان إنان وقت دير قادنين إنان كإراهضو أرمي قدامي معلمهان براها بلشدة أتكا لوجو ففي حقيقة كصاب سنة أرمه اللي يري وحلا عض شيخ لقصة دوبي أو لقى شيء إنه يعود كيجا أو بين أبوره إن صلاة بسوق سير له كأننا دور إليكي راهو قضب كواد وحويه هريبان قرال يرى كوبان إسلامالنتي بهرت أصو شيء أرنكا سوشيال ميديا لجريه عدك جلوه كيسي بين أبورك أها إنه يهي وحبين أبوره وصلي الراد عن لهين وين بينيه عدك هذا الكنوع عاسه هي فكرك عين كاس أهنا ذاتك أنتيسا badan yaqaana codkayga ama fikirkayga way garanayeen inaanu ahayn arrin sax ah laakiin si aan dadka qaarkiis ugu dagmin ayaan qoraalkaas u baahiyay isla markiiba ama isla maalintiiba oo aan u beeniyay arrinkaas inuu yahay arrin been laba dhinacna wuu ka ahaa midda koowaad waxa weeye xagga yani fikirka uu xambaarsanaa iyo hadallada meesha lagu sheegay midda labaadna waxay ahayd qaabka arrinka loogu ekeysiyay iyo ereyada shakligeeda la adeegsaday nooca la adeegsaday xagga fikirka waa la garanayay inaanay fikirkayga ahayn qof muslima hala dilo iyo maaragtay maxaan kuu sheegaa hala kaco iyo ha lagu tago iyo hubka hala qaato iyo waxyaalo la mid ah oo weligay dacwadeyda aan kaga waanin jiray dadka muslimka dhiigooda inaan xaqdarro lagu daadin بل اسكدها قفكم مسلم قف قال يعني حق درد ديجيس لو دادين كرين ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق تاس halkaas ba fikirka laga ogyahay mid labaadna inaan qarannimo iyo dawladnimo iyo xasilooni iyo deganaan dadka ugu yeero ayaa la ogyahay oo waxa ugu badan oo khitaabkayga iyo hadalkayga uu yahay waxa kale oo lagu garanayay hadda qofka codka duubay inkastoo ay aad isugu dayeen oo software iyo waxyaalahan hadda soo baxay technology-ga la adeegsaday haddana meelo badan baa ka hoos baxay baan dhihi lahaa marka cayayaanka bulshadu waxa ay adeegsan doonaan marka dambe midda ay iska jiraan waa midda koowaad ereyo gaarkooda uu adeegsanayay waxa ereyadeedii ma ahayn مثلا qof caami ah baa duubay oo aan ahayn wuxuu qalidayaana waa nin sheekh oo daaci ah oo khatiib ah oo 30 sano ka badan ama 40 sano khatiib ah marka السلام عليكم وكلية هاي مقرات ميل عربي يعني وكقلدنا وكلحنسنا دنك كلاتو كلمة وحقول جرتي عربي وهذيك سيدو صومالي وبردنا بهذيك ستو واللعب صغير إلا يراهضو مركز ويها لعب صغير وهي وكلية هاي إيوه حيال الله مدا الرياضة لفتي قوة صومالي واللهجات بيلاد هايو وحقول في عنان الله هاي نين لهجات الخير قندلة oo kaleeto inay adeegsadaan marka taasuna waxay ahayd waxyaalo iska muuqanaya nin dhalinyarana codkiisu uu ekaa oo xoogaa lagu sameeyay baalaha marka taasna farsamo xumadooda iyo socod xumadooda ka mid ahayd qodobka labaad waxa weeye markaan anigu arrinka guntiisa aan baaray waxaan u sheegayaa asxaabta iyo akhyaarta meel kastoo ay joogaan adduunka markaan raad raacay oo aan arrinka guntiisii baaray labadan maalmood iyo dhowrkan maalmood ummad Soomaaliyeed oo malaayiin ah baa ku xiran boggan oo Ilaahay qulubtooda u soo jeediyay anigu qulubtooda ma soo jeedin Ilaahay baa soo jeediyay qulubtooda qulubtana Ilaahay baa hayay oo aniga ila shaqeynayso oo dalka jooga oo meel walba jooga oo dibadda jooga oo ummadda Soomaaliyeed ah marka raadkii wuxuu ku dhamaaday oo uu galay cayayaanka baraha bulshada waxa loo yaqaan loo adeegsado hantidii magaca ummadan lagu helay
ee loogu talagalay in iyada loogu adeego oo halkii loogu dhisi lahaa cisbitaallo iyo wadooyin iyo biyo ay cabbaan iyo baad ay helaan iyo shaqo loogu abuuro warshado loogu sameeyo oo danaha aan ka hadalno ah meeshii lagu bixin lahaa ayaa waxaa lagu bixiyaa lacagtaas iyo miisaaniyadaas wax dadkoo dhammi og yihiinna weeye cayayaan bulsho inuu hadba qofkii maaragtay wax ka hadla ama runta sheega ama dadka u naseexayo oo naseexo dhaba u sheega oo dalka iyo dadka u naxaaya in lagu caburiyo taasna waxay halkaas ahayd qodobka saddexaad waxa weeye arrin iska caadiya weeye in arrinkan oo kale iyo arrimo kale oo badan oo laga yaabay in la soo daayo la filan karo oo waxa weeye oo lagu celceliyo oo cayayaanku ay soo sameeyaan marka taasuna wax ma aha lala yaabo ma aha oo waa arrin macruufa waxaanse u sheegayaa dadka ayna og yihiin anigu dhankayga wixii maxamed idriis ku saabsan hadalkaygu waa cadyahay waanadaydu waa caddahay dadka waxaan u sheegaa oo dal iyo dad ahna waa caddahay bartaydan Facebook ayaana ka caddayaa halkaasaan ka sheegaa life baan sidaan u soo galaa waana sheegaa dalka iyo dadka waxaasaa dan u ah dadka siyaasadda ku jira waxaasaan ku waaniyaa dalka iyo dadka inay u turaan baan ugu naseexayaa si hoose oo iyaga toos u ah oo one to one ah iyo si gaar ahba iyo si muuqata labadaba ugu naseexaya marka waxaydinaan lifekaygan iyo codkaygan iyo hadalkaygan aydinaan ka maqlin ogaada ama kii hadda la duubay ama kuwo kaloo lasoo duubi doono oo la leeyahay waa cod sir oo la helay waa wax meeshaas laga inaan waxba ka jirin sal iyo raadna ayan lahayn la iinaan nisbayn karin aniga wixii aad aragtaan oo life halka aan u soo galo oo sidaasoo kale codkaygu u cadyahay iyadoo mar walbaba dee technologygan hadda la adeegsan karo waxyaalaha in laysa saarsaaro haddana inaad aragtaan codkayga oo sidaas u buuxa ayaad aan life ku hadlayo ayaan warkayga anugu ku caddaystaa taasaadna ii soo qaadi doontaa mustaqbalkana taasaad ogaanaysa waxaan rabaa inaan sheego maxay cayayaanku waxa kan u samaynayaan oo nagu haystaan cayayaanku maxay nagu haystaan aniga iyo dadka la midka waxa weeye damiirka nool oo ummadeed ayaan baraarujinaynaa taasay nagu haystaan waxay nagu haystaan hurdada ayaanu ummadeenna ka kicinayna waxay nagu haystaan siyaasiyiinta dhiigooda iyo dhacaankooda ummadda Soomaaliyeed iyo dalkooda ku tijaaraysanaya inaanu toosh ku qabanno oo ku ifinno oo aanu iyagana naseexada u sheegno ummadana inay u turaan aan u sheego waxay nagu haystaan oo cayayaanku ay noo dhibayaan codadka iyaga iyo beentooda ay ula wareegayaan waxa weeye waxaan ka hadlaynaa shacabka dhiigiisu daadanayo walaalayaal 30 sano ha loo turo dhulkiisa ammaankeeda ha lagu dadaalo waxa ilaahay siiyay dhulkiisa khayraadka ka buuxana isaga ha looga faa'iideeyo oo gar ma aha inuu shacabkaasu darxumo iyo saboolnimo iyo gaajo uu ku seexdo deyrarka maaragtay meeshii laga xukumayay iyo caasimadda laga xukumayay waxay nagu haystaan saboolnimo 30 sano ah gar ma aha annagoo dhulka iyagu buuxo ee maad ka shaqaysaan cayayaanku waxay nagu haystaan waxaan ku hadlayaa aniga iyo dad ila midii codka 15 milyan oo Soomaaliya oo silic iyo saxariir ku nool oo hooyooyinku caruurtii ay banaanada iyo shisheeyaha dhulkooda la wareegayaan oo dhulkoodii ay iman kari la yihiin 30 sano ay degi kari la yihiin oo harba dal laga cayrinayo xiriir qaxootina lagu hayo gaarna ay gudaha shaqo la'aan iyo mustaqbal la'aan iyo rajo la'aan ay ku nool yihiin taasaanu ka qaylinayna cayayaankuna taas u diidaya inaanu ka hadalno taasay nagu haystaan waxaan ka hadlaynaa oo anigu aan ku hadlayaa codka wiilka bajaajta wata ee maalintii inuu $10 ama $20 soo helo ee isaga lala dul taagan yahay boonada cashuurta bixi wadana aan loo sameeyay nalna aan loo sameeyay biyana aan loo sameeyay gurina aan loo sameeyay shaqana aan loo abuurihayn dantiisana aan laga fikirayn isbitaalkiisa iyo daawadiisa hadduu xanuunsadana aan laga fikirayn taasoo yarabin cayayaanku inaan ka hadlo waan arrimaha aan had iyo jeer ka hadlay taasaan isku haynaa shakhsiyad isku ma hayso ashkhaasna anagu isma hayso mana isnaqaan mana isu baahayn inaanu ka wada hadalno haddaba waxaan sheegay taas mid aan anaga ka leexanayo ma aha aniga iyo dadka la mid waana ka hadlaynaa waana ka hadli doonaa ilaahay idankiis ummadeenna waa baraarujinaynaa xaqeeda iyo xornimadeeda iyo sharafteeda iyo gobonnimadeeda inay doonato oo hoggaan
iyo shaqaale siyaasadeed iyo maamul ee u qalma inay heshana kama daalayno inaan had iyo jeer ka hadlo qodobka iigu dambeeya waxa weeye gabagabo arrinkan been abuurka iyo kuwa la midka ah ee la soo duubi doono ma dhammaanayaane annaga horta dhiirigelin bay noo sii siyaadinaysaa wayna noo adeegaysaa dadku inay sii jeclaadaan hadalkayaga bay sii dhiirigelinaysaa waxay kale oo noogu adeegaysaa inayna sii caanbixiso intii aan aqoon inayna aqoonsato intaa ka sokow cayayaankan bulshada waxa kan loo yaqaano waxaa laga soo guuriyey dalal carbeed oo dadkooda caburiya oo qofkii xaqa ka hadla ama gobonnimada ummadda ka hadla ama sharafteeda ka hadla lagu caburiyo ayaa laga soo guuriyey markaasaa wax yaroo kharash iyo wax yaroo malaayiina lagu bixiyaa meeshii lagu bixin lahaa isbitaallo aan qalabkii lagu neefsan lahaa maanta aan muqdisho laga heli karin qalabkii qofka fayruusku ku dhaco isbitaallada waaweyn aan laga helihayn ilaa yowmina haada aan laga helihayn qofkii la dilo oo maaragtay gurigiisii isagoo maaragtay halkaa ka soo baxay ama masaajid ka soo baxayna meel loo raaco aan lahayn sidii daqsi dhintay uu yahay yaa 20 sano 25 sano ayaa arrimahaas ay taagan yihiin cayayaankan marka dowladahaas carbeed ee maaragtay dadka caburiyaa laga soo guuriyey waxaan aad u jeclaan lahaa meesha cayayaan la soo guurinayo haddii siyaasiyiinta Soomaaliyeed ay doonayaan inay magac yeeshaan ama ummadooda ay muuqaal ka helaan inay soo guuriyaan horumarka Turkiga oo kale horumarka Malaysia oo kale horumarka Singapore iyo South Korea oo kale inay soo guuriyaan oo sida dadku ay magaalooyinkooda u dhisayaan oo infrastructure-ka loo dhisay oo isbitaallada loo dhisay oo dugsiyada loo dhisay oo guryaha dadka danyarta ah ee cariishiyada ku nool ee nis milyoonka ah ee madaxtooyada Soomaaliya iyo wasaaradaha hareerahooda guryaha buushashka ah ee roobka iyo biyaha celinayni ay ka taagan yihiin sida guryo loogu heli lahaa 15 sano hadda oo intaas oo xukuumadda isu soo dhaaftay aan marna hal guri loo dhisin inay taasoo kale soo guuriyaan baa aad iyo aad u fiicnaan lahayd laakiin nasiib darro waxa ayaan darro noqotay dadkii siyaasadda ku tijaaraysanayay ama ka ganacsanayay inay soo guuriyaan keliya cayayaanka baraha bulshada inay soo guuriyaan oo lagu caburiyo qofkii runta sheega ama xaqa sheega waxaan leeyahay marka yaan waxba laga insha allahu tacaala argagixin yaan laga welwelin dalkeenna iyo dadkeennuna adeega iyo hogaaminta ay mudan yihiin maalin un way heli doonaan insha allahu tacaala gobonnimadoodii iyo xurnimadoodii iyo xaqoodana ay mudan yihiin way heli doonaan dalkooda barwaaqada ahna dad u soo saara way heli doonaan insha allahu tacaala oo aanay ka gaajoon dibadmeerka iyo musaska ummadaha kale inay ku noolaadaanna ummad ka soo ururta bay noqon doonaan insha allahu tacaala maalin maalmaha ka mid ah siyaasiyiinta dhiigooda iyo dhacaankooda iyo darxumada ummadeenna iyo dalkeenna daaraha kaga dhisanaya Istanbul iyo Nairobina gobolkooda wuu dhici doonaa doorashooyinka ay iyagu ugu yeeraan doorashada ee laaluushka iyo lacagta ay ku kala iibsadaan meelaha xaaraanta ah laga keenayna way dhammaan doontaa maalin maalmaha ka mid ah ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم إلهي سبحانه وتعالى يا بوشنا إسقى بحية إلهي سبحانه وتعالى وحو قدرنا لما ديدي كره نصر ومضانا ويمن دونا مالمها كاملة كواسنا تاريخ ذو وحي كتور الدونتا ميلا آن لقصو قادين لنا خصوصا إيانا وحان ديه لها ورهدي إلهي وجهي سنة مالين بالهورتي دوناي هذا البين هو الله سميو يقف وحلقة فبركيو iyo maaragtay been la abuuro waxba tari mayso yawma tubla saraa'ir maalinta ilaahay hortiisa la tago saraa'irto dhan waa la feedayaa maalintaasna jagaan waxba ku sameeyeen lacag ayaan waxba ku tari doonin dawlad kaleeto ayaan waxba ku tari doonin adduunku hadduu isugu ka yimaado ayaan waxba ku tari doonin ilaahay subxaanahu wa ta'ala naftiina uga baqa ummadana ilaahay uga baqa been abuurka iyo naftiina uga tura إلهي سبحانه وتعالى توفيق لي سهنا وافجيه إلى طريقة توصلنا إلهي سبحانه وتعالى هنوصل دائما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.